gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo xogayaha xuquuqal insaanka xisbiga wadani marwe faadimo siciid ibraahim oo baryahanba ku guda jiray socdaal ay ku marayeen qaaradda yurub ayaa soo gaadhay magaalada frankfurt ee dalka jarmalka waxaana gegida diyaaradaha ee magaalada frankfurt ku qaabilay madaxda xisbiga wadani ee dalka jarmalka iyo taageerayaashooda oo ay wehelinayaan xubno ka socday jaaliyadda somalilan mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee dalka jarmalka oo goobta soo dhoweynta ka hadlay ayaa sheegay siday ugu faraxsan yihiin imaanshiyaha gudoomiye ciro iyo marwe faadimo siciid ee dalka jarmalka. inta laga maqano kulley howlo shaqoon bay ku maqnayd aad iyo aad u soo dhawow waxaad la socotaan maxay ahayd inuu gudoomiyuhu gobolada dalka maxay ahayd ku marayay inuu mahad celiyo dadkii u codeeyay xisbiga boqolkiiba 40 siiyay taasoo Somaliland markii dambena waxaad ogtihiin maxay ahayd oo yimid qaaradda Yurub taasoo maxay ahayd dhowr wadan inuu maray nasiib baynu yeelanay haddii nahay reer Germany inuu maanta nagala ciido Frankfurt maxay ahayd maanta inuu ku soo dhaweeyo intaa ka bacdi waxaan fariin yar u dirayaa dhammaan amaam xisbiga meel kasta ay joogaan mahadnaqa gudoomiye ciro oo ka wado dadkii maxay ahayd u codeeyay waxa daba socota fariintaasi waxa weeye wali ololi waa taagay wali isbedelkii dalku waa u baahan yahay kuma aamini karno xisbiga imaka maxay ahayd xisbi xaakinka inaynu ku sii eegano dalka waxaan leeyahay nin kastoo maxay ahayd ka tirsan xisbiga wadani inuu maxay ahayd xooggiisa iyo hantidiisa u huro taasoo aynu waddankeena ku badbaadinayno aad iyo aad baan waxay la socdaan garbiyada haweenka dhammaan madaxda xisbiga wadani iyo mustaqbaliyadii oo la socdaan waana soo dhawaad gudoomiye waxa weeye maalintii labaad ee ciidii ciidul fidriga aynu gudayno ku jiro oo bishii barakeysneed ee Ramadaan dhamaystirkeedii iyo ciideedii aynu u ciidayno haddaynu nahay muslimiinta dhammaanba dunida taxaladeeda innaguna aynu ka mid nahay haddii alla ka dhigo dalkeena iyo ummaddeenu ay ka mid tahay marka waa wax sharaf leh inaan ku soo dhaweyno intii la galabta halka misir ku heshay inaan ku kulanno airbalkan Frankfurt ku qaabilaysaa bulshada waa ballaarantay laakiin adnaa fasaxii ciidda lagu jiro oo la ballaarnaa laguma dhamma laakiin tayada joogtaa wakiilun baanu ka dhahay marka adiga iyo waqtigeeda mudana waan kugu soo dhaweynaynaa Germany aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ay ciid tahay inay ciid labaadna inuu raacday madaxweynaheennii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo faadimo siciid oo ah madaxda heerka qaran ee xisbiga wadani ay halkii ugu yimaadeen aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo ilaahay ugu mahadnaqayaa ama shacabkaygan iyo madaxdan kale xisbiga iyo dhalinyarada halkan hawshan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee u soo ajiibteen ee u soo dhaweyseen جميع حقوق الإنسان كفر المسيحي وحاولنا نسوي هذا الجبل كهسن نسوي هذا الجبل كهسن فرانكفورت هل كان يوم مدحنا عرض يوروب ومكستي سجيني يجانا واحد نسوي هذا gabagabadii waxaa goobta iyaguna ka hadlay ugana mahadnaqay qaabka ay u soo dhaweeyeen gudoomiye cabdiraxmaan ciro iyo marwe faadimo siciid waxaanay faahfaahin ka bixiyeen ujeedada socdaalkooda ay ku marayeen qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Jarmalka. لكن النهاية صفر كان طيب الشغل هاي إنه ضروري كي يمر على ولا كميني طيب لو حينا شانيده يحس بيها ونوم هذا غلو طيب تأكل حياة مش جاري وهل كنت تاجي ما خد كرامية
dhalinyaro badan iyo haween badan oo waqtigii doorashada iyo Soomaaliland oo ka soo shaqeeyay oo ka qayb ahaa guusha xisbiga gaadhay intii labada intii soo taakooynaysay oo aan maqlaynaa كل يوم اسبوعي كريم شيخ محمد عبدي زاب تي في ذلك جرمالك